Halkan waa warbaahinta JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka JMN waxaad kala socon kartaan barteena Facebook iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah Itoobiya waxay noqonaysaa xarun tamar goboleed. Marinka Hormuz waxaa weli saaran xanibaado iyo ciriiri la xiriira isu socodka. Wararkaasi oo si tafatiran ah ayaan idin soo gudbin doonaa ilaa dhammaadka warka ee nala socda. Itoobiya waxay noqonaysaa xarun tamar goboleed iyadoo kordhinayso awoodeeda soo saarista tamarta la cusboonaysiin karo, ayuu yiri wasiirka biyaha iyo tamarta Engineer Habtamu Tafa. Horumarinta Itoobiya ee tamarta biyaha qorraxda dabaysha ayaa abuuraysa jawi lagu kobcin karo awoodda soo saarista korontada. Socdaalka horumarka leh ee horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo ayaa ah yool lagu dhisayo dhaqaale cagaaran oo isku xira soo saarista korontada, horumarka kobaca dhaqaalaha iyo isku xirka gobolka. Engineer Habtamu Tafa ayaa sheegay in horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo ee Itoobiya ay u suurtagelinayso in ay dhisto dhaqaale waara oo u adkaysta saameynta isbeddelka cimilada. Wuxuuna sharaxay in horumarinta ilaha tamarta la cusboonaysiin karo ay sidoo kale dhisayso kaabayaal tamar oo dardargelin doona kobaca warshadaha beeraha, horumarinta magaalooyinka iyo dhaqaalaha dijitaalka. Wuxuuna sheegay in iyadoo la horumarinayo kheyraadka biyaha qorraxda, dabaysha iyo kuwa dhulka hoostiisa mara ay suurtagal tahay in la abuuro aasaas dhaqaale iyadoo la xoojinayo helitaanka ilaha korontada, amniga iyo waaritaanka leh. Gaar ahaan wuxuu sharaxay in biyo-xidheenka dib u cusboonaysiinta Itoobiya oo la dhisay iyadoo lala kaashanayo muwaadiniinta iyo awoodda dalka uu furayo bog cusub oo taariikhda horumarinta tamarta Itoobiya. Wuxuuna sharaxay in awoodda korontada ee biyo-xidheenka dib u cusboonaysiinta Itoobiya aysan kaliya ka caawinin daboolidda baahiyaha Itoobiya, laakiin sidoo kale ay abuurtay fursad cusub oo lagu xaqiijinayo xiriirka dhaqaale ee gobolka iyadoo loo dhoofinayo tamarta dalalka deriska. Tani waxay muujinaysaa in tamartu aysan ahayn oo kaliya ah kheyraad loogu talagalay kobaca iyo horumarka Itoobiya, laakiin sidoo kale ay tahay qalab loogu talagalay ganacsiga, diblomaasiyadda iyo iskaashiga gobolka, iyada oo la tixgelinayo muhiimadda istiraatiijiyadeed ee suuqyada biyaha iyo tamarta adduunka. Itoobiya waxay ballaarinaysaa isku xirka gobolka oo ka baxsan baahiyaha tamarta gudaha iyadoo horumarinaysa kheyraadka dabiiciga ah. Wuxuu sidoo kale xusay in safarka horumarka leh ee Itoobiya ee horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo uu yahay yool horumarineed oo qaaradda ah oo ka baxsan soo saarista tamarta si loo dedejiyo kobaca guud ee gobolka iyo barwaaqada. Wuxuuna sheegay in iyadoo la horumarinayo kheyraadka dabiiciga ah ee istiraatiijiga ah, Itoobiya aysan hubinaynin kaliya ah amniga tamarta, laakiin sidoo kale ay dhisayso cutub cusub oo ku saabsan isku xirka tamarta bariga Afrika iyo isdhexgalka dhaqaalaha Afrika. Wuxuuna tusaale u soo qaatay in la wado shaqo lagu ballaarinayo isku xirka tamarta ee Djibouti, Kenya iyo deriska kale si loo horumariyo kobaca iyo barwaaqada la wadaago. Wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in la diyaar garoobayo sidii loo siin lahaa koronto wadamada deriska ah oo ay ku jiraan Koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya, iyo in la ballaariyo kaabayaasha isku xirka tamarta. Wuxuu sheegay in iibinta tamarta ay sii waday in ay ka faa'iidaysato dhaqaalaha, taasoo ka dhigaysa Itoobiya xarun tamar iyo ilo kabashada sarifka lacagaha qalaad.
marinka muhiimka u ah ganacsiga ee Hormuz waxaa weli saaran xanibaado iyo ciriiri la xiriira isu socodka maraakiibta, iyadoo khilaafku u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ee ku saabsan gacan ku haynta marinka uu sii xoogsanayo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogta shirkadda dabagalka maraakiibta ee Kleber waxa ay muujinaysaa in Khamiistii tirada maraakiibta maraya marinka ay wax yar ka badan yihiin 12kii markab ee maray Arbacadii. 9 markab ayaa Khamiistii ka gudbay marinka marka loo eego 5 markab oo Arbacadii gudbay. 5tii markab waxay galeen gacanka Faris, halka 4 kale ay ka soo baxeen gacanka una gudbeen gacanka Cumaan. Inta badan maraakiibtaasi waxay raaceen waddooyinka maraakiibta ee Iiraan si kooban. Isu socodka marinka Hormuz wuu socdaa, laakiin weli waa xadidan yihiin, iyadoo xiisadda Mareykanka iyo Iiraan ay sii kordhayso. Dhanka kale, kumanaan askarta Mareykanka ah oo in ka badan 250 maalmood ku sugan markabka diyaaradaha qaada ee USS Abraham Lincoln ayaa la sheegay in la tacaalayaan cunto yari, suuliyada oo ka sii xumaanaya iyo daal fara badan. Arrintan ayaa keentay in xildhibaano Mareykan ah ee Pentagon-ka ah ka dalbanayaan jawaabo ku aadan, isla markaana ay maamulka Trump codsi ku saaraan joojinta dagaalka Iiraan. Warbaahinta militariga ah ayaa sheegtay in qaar ka mid ah askarta Mareykanka ay isku dayeen in ay badda isku tuuraan, iyadoo qoysaskuna ay walaac ka muujinayaan caafimaadkooda maskaxda ee askarta saaran markabka.